dawladda hadda aan u aqli celino asxaabteena ku jirto madaxweynaha waa nin saaxiibkeena inaan tala siino tala waaye aragnimo siino tala walaaltinimo siino waxaan aniga shalay u tanaasulo kursiga maanta aad ugu raaxaysan lahayd haddaan joogi lahaa aan u wareejiyey oo aan u qaadan waay in qof kale inuu qaadan karin kaliya inaan waa ku mahadsantihiin sida ehelnimada leh walaalnimada leh saaxiibtinimada leh odaytinimada leh aad noo soo dhaweyseen wiilkiinnii ayaa soo dhaweyseen walaalkiin ayaa soo dhaweyseen hogaamiyihiinnii ayaa soo dhaweyseen kulli waa idinkaga mahad celinaya waxaan u soo guryo noqonnay kulley taba aniga halkaanaan deganayay oo aad ka warhaysaan waxaan u soo noqonnay 3 wiig camal ayaan maqnaa waxaan u soo noqonnay inaan la fadhiisanno dadka Soomaaliyeed siyaasiyiinta ka fikirka duwan dawladda asxaabtii hore madaxdii hore inaan la fadhiisanno wada tashanno dawladda hadda aan u aqli celino asxaabteena ku jirto madaxweynaha waa nin saaxiibkeena inaan tala siino tala waaye aragnimo siino tala walaaltinimo siino waxaan aniga shalay u tanaasulo kursiga maanta aad ugu raaxaysan lahayd haddaan joogi lahaa aan u wareejiyey oo aan u qaadan waay in qof kale inuu qaadan karin kaliya inaan waad ogtihiin oo dhowr goor ay qabsateen maxaa u joogi weysa laakiin haddaan joogi lahaa waddankaa dumi lahaa sidaas si lamid ah saaxiibkeena waddankaa dumaya hadduu sii joogo marka waa in kubadda dhaxda lasoo dhigaa la wada ciyaaraa qofkuu ilaahay calaf u geliyina uu helaa insha allah waxaa kaloo idiin sheegayaa dastuurkii lagu ciyaaray waa inuu asalkiisii ahaadaa dastuur laguma ciyaari karo haddii wax laga bedelayana Soomaali oo raalli ka ah oo cod loo qaadaa lagu bedeli karaa waxaa kaloo soo haray doorasho 30 sano 12 sano u dambeysay doorasho oo qor isku dhiibaha lagu jiray iyadana intii lagu jiro oo heshiis lagu yahay halka loo hayaamayna heshiis lagu yahay waqtigeedina waa la wada yaqaanaa waqtiga ay dhacaysana waa la wada ogyahay heshiis hore loogu ahaa haddana way ahaanaysaa marka waxaan leeyahay Soomaaliyeey inta i daawanaysa cid aan u socono iyo cid aan xumaynayna ma lahan kii ila dhashay iyo kii qaraabada ay ahay kii ifuga kulli ani waa ii sameeyeen shacabka Soomaaliyeedna waa iga wada codsadeen inaan u wada dhaxeeyo kan hadda jooga iyo kii shalay tagayba labadaba walaalahay waay waxa waajib ah waxa ummadda Soomaaliyeed leedahay inaan ka shaqeyno taas ayaa waajib ah waxa ummadda Soomaaliyeed ay heshiis ku tahay in laga shaqeeyo taas ayaa waajib ah in Soomaaliyeed isku keeno oo kala tagtay maamulada maqan shacab badan naga maqan dadkii kala irdhoobay waxa soo in la isku keeno wixii heshiis lagu ah hore loogu heshiiyana sideeda dib loogu soo noqdo ayaan rajaynayaa qofkii diidana hadda naga qof dadkiisa ka weyn ma jiro insha Allah aqligan uu shaqeyn doona haddana hor dhici maayay shirkaas ayaan ka qayb galaynaa hadduu alla idmo aniga iyo tiimkeena